Tiknoolajiyadda dhanka dagaalada ee wadamada Islaamku farsameeyeen ayaa saameyn ku yeelatay isku horimaadadii dagaal ee ugu xoog weynaa ee qaaradda Yurub ka dhaca wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Tiknoolajiyadda oo isku calaamadiyay taariikhda. Barnaamijkan xogta dahsoon waxaanu ku soo qaadanaynaa tayada diyaaradaha daroonta ee ay sameeyaan Turkiga iyo Iiraan, kuwaasoo ka soo muuqday samada dalka Ukraine oo ay colaadi ku meersan tahay. ku soo dhawaada barnaamijka. soo gelitaankii diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee daroontii ay ka qayb qaateen dagaalada qaybtii hore ee dagaalka Ukraine ayaa waxay ka dhigtay shay muhiim ah oo ku saabsan faa'iidooyinkii dagaal ee ay Ukraine heshay. iyadoo toddobaadadii la soo dhaafayna ay daroonta Iiraan soo jiidanaysay indhaha, natiijooyin cusubna ay ka samaysay dagaalka. marka la eego caqliga caadiga ah, labada wadan ee waaweyn ee muslimiinta ee soo saara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, Turkiga iyo Iiraan, ma xiisaynayaan dagaalka socda ee Ukraine ka socda, kaasoo salka ku haya arrimo qoto dheer oo ay ka mid tahay xadaaradda qaaradda Yurub iyo kala qaybsanaanteeda dhanka madaahibta. waana dagaalka dhalaaliyey barafkii ku gudbanaa qarniyo badan xidhiidhka iyo wada noolaanshaha ka dhexeeyey dadka Ruushka iyo kuwa reer Ukraine. laakiin hubka ay sameeyaan labada wadan ee muslimiinta ayaa ka soo muuqday fagaarayaasha iska horimaadadu ay ka socdaan ee dalalka galbeedka. si xoog lehna waxay u saameeyeen oo xusuus qorka ugu reebeen dagaalada dhimashada dhaliyey ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Ruushku waxa uu ku tiirsan yahay daroonta Iiraan ee noocyada kala duwan leh, sida ay xaqiijiyaan ilawareedyo reer Ukraine iyo wadamada reer galbeedka. Iiraan iyo Ruushkuna ay beeninayaan. haddaba xageebay ka bilaabatay sheekadu? diyaaradda daroonta ee Bayraktar ee dalka Turkiga waxaa lagu tilmaamay usha sixirka ah ee ku jirta gacanta Ukraine si ay Ukraine kaalin muhiim ah oo adag uga muuqdo dagaalka ay kula jirto Ruushka. xidhiidhka diyaaradaha daroonta ee Turkiga iyo Ukraine ma ahayn mid ka dhashay dagaalkan soconaya, laakiin waxa iibsigooda iyo horumarintooda ay dib ugu noqonaysaa dagaalka ka hor. shirkadda Bayraktar ee dalka Turkigu waxay warshado ka dhistay dalka Ukraine gudaheeda ka hor intii aanu dagaalkani qarxin. intaa waxaa sii dheer in Turkigu uu dhowr jeer ka iibiyey Kiev diyaaradaha noocaasa muddadii 2 sano ahayd ee u dambeysay, taasoo ka dhigaysa in dadka indhe-indheeya dhanka militarigu ay rumaystaan in kaydka Ukraine ee diyaaradaha daroonta Turkigu uu aad uga badan yahay tirada la filayo. wargeyska Le Croix ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa ku tilmaamay daroonta Turkigu inay tahay ul sixir ah oo sabab u noqotay inay dadka reer Ukraine ka hor tagaan weerarka Ruushka. waxaana uu xusay in meelo badan oo ka mid ah ay ku jiraan fiidiyowyada iyo muuqaalada tilmaamaya diyaaradda daroonta oo dhaqdhaqaaqa militari wada, bartilmaameedsanaysana kolonyada ciidamada Ruushka. mararka qaarkoodna ay iskor taagto xitaa haddii ay tahayba wakhti kooban. bishii Maarch ee lasoo dhaafay, ciidamada dhulka ee Ukraine waxay si gaara ugu dabaaldigeen diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Turkiga, iyagoo soo saaray hees xamaasad leh oo ay ku faanayeen kartida daroonta Bayraktar. Iiraan ayaa iyaduna waxay daroonta siisay dhanka Ruushka, waxaana dhacdadani bilaabantay markii diyaaradaha daroonta ee Ruushka loo diyaariyey dagaalka Ukraine kadib booqasho uu Tehraan ku tegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. xilligaasoo ay bilaabmeen eedeymaha Maraykanku ay ku sheegayaan inay Iiraan diyaaradaha badan oo daroon ah ay siisay dalka la xulafada ee Ruushka. aqalka cad wuxuu ku dhawaaqay xilligaa in xogtiisa sirdoonku ay muujinayso in Iiraan ay Ruushka siisay ama ay siin doonto boqolaal diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn si ay uga caawiyaan iska caabinta ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga dalka. 30 bishii August wargeyska Washington Post ee dalka Maraykanka oo soo xoganayay saraakiil Maraykan ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay 10 maalmood ka hor xilliga u dirtay Ruushka shixnadii ugu horeysay ee diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn si loogu isticmaalo Ukraine. wargeyska oo soo xiganaya hay'adaha sirdoonka Maraykanku waxa uu baahiyay in shixnada ay ku jiraan ugu yaraan 2 nooc oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo awood u leh inay qaadaan rasaas lagu weerari karo goobaha raadaarada, madaafiicda iyo bartilmaameedyada kale ee ciidamada.
13 Sebteembar Ukraine waxay ku dhawaaqday inay markii ugu horeysay soo riday diyaarad aan duuliye lahayn oo Iiraan lagu sameeyay oo adeegsanaya ciidamada Ruush. Magaca diyaaradda Bayraktar ee daroonta ee dalka Turkiga ayaa sare u soo kacay sanadihii ugu dambeeyay markii ay diyaaraddaasi ka qayb gashay dagaallo badan oo ka soconayay meelo kala duwan oo dunida ka mid ah. Ugu dambeyntiina diyaaraddaasi waxay guulo la taaban kara ka xaqiijisay gudaha dalka Ukraine. waana mid ka mid ah diyaaradaha muhiimka lagu tilmaamay ee daroonta ee ay Turkigu farsameeyeen kadib markii ay dalkaasi ku jiray sanado badan oo godoomin iyo cadaadis reer galbeedku ay ku hayeen oo ay kaga xanabayeen tiknoolajiyadda casriga ee dhanka ciidamada. daroonta Iiraan ayaa sidoo kale iyaduna waxay muujisay inay tahay xoog wax baabi'in kara. Master Jean Christophe Noll oo ah cilmi baare Faransiis oo ka tirsan macadka xiriirka caalamiga ee Faransiiska ayaa waxa uu leeyahay marka laga hadlayo wax ku oolnimada daroonta Iiraan waa mid aad waxtar u leh haddii qofka ka soo horjeeda aanu haysan wax uu naftiisa kaga badbaadiyo amaba wax uu kaga hortago. waxayna si ahaan doontaa buuli mid waxtar kaale ilaa Ukraine ay hesho saanad ay iskaga qabta oo ay gacantooda soo gasho saanad dhanka difaaca cirka oo horumarsan. marka laga hadlayo diyaaradda daroonta isqarxinaysa ee Shahiid 136 oo ah diyaarad ismiidaaminaysa waxaa ujeedada loo samaystay ay tahay inay ku soo dhawaato bartilmaameedka oo dabeetana lagu qarxiyo. isticmaalka uu Ruushku u isticmaalayo diyaaradahaasi inuu ku duqeeyo bartilmaameedka ka tirsan Ukraine waxa ay wax weyn uga taraysaa inay xafidaan oo Ruushku ay joojiyaan adeegsiga gantaalahooda qaaradaha isaga gusha ee balastikada. gantaalahooda oo qiimahoodu gaarayo ugu yaraan $1 milyan dollarka Mareykanka. diyaaradda daroonta ee Bayraktar TB2 waxaa saaran mashiin quwadiisu tahay 105 faras waxaana ay diyaaraddaasi qaadan kartaa agab miisaankoodu gaarayo 150 kilogaram iyadoo hawada ku jiri karta muddo 25 saacadood oo toos ah iyadoo aan mar kaliya soo degin. waxaana ay jooga sare diyaaradda Bayraktar u duuli kartaa ilaa 30,000 oo foot. 80% diyaaradda waxaa laga sameeyay agab maxalli ah oo ay Turkigu leeyihiin. waxaa kaloo jirta diyaaradda Bayraktar Akinci Tia oo ah diyaarad daroona oo iyaguna ay leeyihiin ciidamada dalka ee Turkigu. diyaaradda Muhaajir ee dalka Iiraan ee Muhaajir 6 ee daroonta ayaa waxay qaadan kartaa ilaa 40 kilogaram madax dagaal oo culeyskiisu gaarayo 40 kilogaram. saacadiibana waxay goyn kartaa 200 oo kilomitir iyadoo jooga sare ee hawadana gaari kartaa masaafo 18,000 oo fuudha. waxaana suuragal waa inay ilaa 12 saacadood oo toos ah ay hawada ku jirto iyadoo aan marna soo fadhiisan iyadoo duqeyn karta bartilmaameedyo taagan iyo kuwa dhaqdhaqaaqaya. marka la isku soo duubo ka qaybgalka diyaaradaha daroonta ee dalalka Islaamku ay ka qayb qaadanayaan colaadaha caalamiga ee qaaradda Yurub gudaheeda ka dhacaysa kuwaasoo ay xitaa dalka Mareykanku ay qayb weyn ku leeyihiin ayaa waxay tahay tallaabo isbedel oo horumarsan waana calaamad kale oo muujinaysa sida isku tashiga bulshooyinka iyo wadamadu uu yahay mid taabaqaadaya iyadoo hubkan ay haatan adeegsanayaan wadamadii iyaga laga keeni jiray hubka kadib markii diyaaradahan daroonta ay noqdeen kuwo sahlan oo qiimahooduna uu jaban yahay waxyeello ba'ana geysan kara. waxaa kaloo jirta wadamada Islaamka ee hubka soo saara ay si joogto ah u wadaan soo saaritaanka hubka oo aanay ka baqaynin in kaydka u yaala uu yaraado amaba uu isdhimo taasoo ah dhibaatada ugu weyn ee haysata wadamada reer galbeedka oo xerada kaydka hubkooda ee ay 2 taangi ka soo saara ay khasab ku noqonayso inay 2 taangi dib ugu xareeya oo ay miisaaniyadda u qorsheeyaan sanadaha soo socda. miisaaniyaddana kadibna shirkadaha sameynaya taangiyada ama qalabka hubka ay ku qaadanayso iyagana muddo sanad ah oo kale iyadoo dagaalada casrigaana ay qayb weyn ka qaataan diyaaradaha daroonta kuwaasoo badbaadinaya nafti bani aadamka ee diyaaradaha kale ee dagaalka saarnaan lahayd sida duuliyayaasha raaca diyaaradaha kale ee dagaalka ee soo jireenka. waxaana qayb weyn ay ku leeyihiin diyaaradaha daroontu iyagoo qaadi kara sawirro aad muhiim u ah sidoo kalena hagi kara hubka ciidamada ee dhulka fog yaalla
diyaaradaha daroontuna awoodahoodu waxay u qaybsan yihiin ilaalaynta, duqaynta iyo hagista hubka kale ee meelo kale laga soo ridayo sida maraakiibta, madaafiicda iyo gantaalaha.